سلامك بعدي إلهي بقى مهد إسكالي الحمد لله رب العالمين إنه ما أنت أو جمعة هروناك سجوني ما أدنه إنه قويس أو كهذ لينا نبكي إنه قد عي إلهي قدري الشيطان كشقي إنه كهذ لينا نبدي دي إنه هالكن سجوني ما أدنه وأوحي إلهي لو حمد نغوي عراد يسوع شيء مين واحد هاي وينو قررنا نبتقليه دو واحد هاي وينو قررنا نبقى هالك كذا عي ورت إلهي بقدري إلهي بانا قرتي وحلا هاي قرينا ما تشوفين كرنو هذا أنو أود ولا إن هاي وأنو لنوسي شيء إلهي إنسان وحول عيانا ده أود أمر هنا وينو كور تيجي هاي أنو كنيمي magaalada baran baanu subax habeenkii soo galay garowwe subaxnimadii halka waxaan ku kulannay guddigii isxaqaan iyo salaadiintii anagoo ah waxaanu isla qaadanay in aanu bari aroortii waa maalintii wax dhacayeen maalintii ka horeysay in aanu tagno halka oo nabada cunaha qabanno oo macasha qabanno oo hawsha aanu galno salaadiin badanna baran baan ku soo ballanay maalintaas waxa taagnayd oo aanu naloo soo sheegay anagoo diyaar u ah in hawshii iyo goori ka jirtay qaybteedii dabardalool oo ugu cuslayd oo adogeeyda ragga ku dhintay in la soo afjarayo oo xafladeedii koowaad la qabanayo break baanu kala qaadanay waxaanu niri maalinta iyo goori baan ana aadayaa وين دافتي maalintaasi subaxa damba wayno iyo waxa weeye sacmeegaag baan gudigiis xilqaan islaamkana galikii dambe ayaa warka la gaarsiiyay iyo sultaankaba waxa iyagu waxaanu ku balansanay inaanu halka isugu nimaadno oo hawsha aanu dib nabadgelyada uga talino nasiib wanaag ama nasiib darro annagoo soo soconnaa oo markaa tukarag agteeda marayna oo sooba jarmaadnay ayaa naloo sheegay in dagaalkii uu socdo oo ay xabadii bilaamatay haddii aanu boocama nimina waanu ka gudubnay waa isku daynay inaanu xabadda joojino rag aniga la socday waaba ku dhinteen ragna waaba ku dhaawacmeen annagii baa khatar galay wax ilaahay qorayna way ahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii halka ku dhimatay ilaahay waxa weeye inuu xariisti janno siiyo intii ku dhaawacatayna ilaahay u boogadhayo de quraankana waa lagu sheegayo dad islaam oo isdilaya culimadii baa sheegtay oo noo dhamaysayo de ilaahay baynu u baryaynaa waxaan halkan waxa runtii aan uga mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka ana kusimaha madaxweynaha hawsha uu iska xil saaray ee aan isugu nimidsan ka jabiyay isagoo jabhadan ugu aqaanay dhowrka cishana uu hadda halka u fadhiyay runtii wax weyn bay tartay waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa beelaweynta leelkase oo cuqaaliya guurti noogu yimi boocame garowana soo maray nabadda ay raadinayaan uga mahad celinayna beelihii kale Yuusuf Daarood iyo waxa weeye ragii halkan ka hadlay سلطان سعيد قولي سيارة كسك قبائل رجلها إن الله لينتي نبض ما أنت هالكانوا تيمي دون سائنا نبض كشق سنة إينا وهم هذا علنية مدحونا كحيان كمر لبعض وهم هذا علنية لا شكر على واجب سيء وقوليس وسير هذا أنت هديان كجدبه وحوي لبعضي بيلود هالكا دوينو أجنا هايو هدينو هرتنا هاي reeraha siyaala kala la isugu xantaayo xasan ugaasi ciise maxamuud waa la isku xamay jiray laba qoys oo wada dhashay oo isku deegaana oo wiil iyo abtigooda oo waxba kala lahayn bay ahaayeen hadeerna waa yihiin dibka yar ee dhex marayna anagu waxaan jecelahay in iyagu ay dhameystaan laakiin mar hadii xukuumadii Puntland ay soo gashay wax garadkii daaroodno isugu yimi hawshaasi insha Allah way dhamaanaysaa go'aanka labada beelood ay ku dhawaaqeen ee xabad joojinta ay gacmaha iyo lugaha u taageen
ay golahaas waxa weeye maanta har wanaag kaga dhawaaqeen oo yiraahdo xabad joojin waa ku dhawaaqnay ciidamada in la kala rarana waa ku dhawaaqnay waxa weeye boonkaana ay qaateen haddaanu dhaqanka nahay waanu ku daba joogaynaa waanu ku ilaalinaynaa ciddii heshiiska ka baxdana waxa weeye waa la arki doonaa ganaaxidana waa la kulmaysaa xaliimo cali biyood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya iyo haweenka ilaa iyo maalintii arkay nabadna waa ka shaqaynayeen de hawsha inta ugu badanna haddaad xaliimo ogtahay haddaad ogtihiinba xaggiina ka timaadaa waayo waxa weeye maanta harti waxba isu qarin ma inkastoo hadalku dambayn doono waxa meesha kimis ordaysay waxa caana ordaya iyo waxa garow laga sheekaynayo midiyo la ordayo iyo dumar qaylinaya deeyana waxa weeye waa jiraan oo idinka laftiguna dib u shirtaan oo muusano ugu badan dumarka xaggoodu ka socda waayo waxaan garanayaa nin dhaawacay nin meydaba gacanteeda soo galay aniga iyo waaska wallahi dumarkaanu kala carareynay billahi taala oo xaga kala soo wareegnay oo aanu waxa weeyaan ku soo gudbin idinka laftigiina dib isugu noqda kuwa garow joogana waa garanayna kuwa laas caro joogana waa garanayna dumar badan oo nabadgelyo ka shaqeeyana waa jiraan laakiin ficilka ugu badan iyo markaad baraha bulshada eegto dumarka inta ugu badan kacdoonka wada dibna idinku isugu noqda xukuumadda waxaan leeyahay qodobka aad ha loogu fiirsado nabad baynu ku dhawaaqnay xabad joojin baynu ku dhawaaqnay haddaan haddeer ciidan meeshii loo dirin now just now madaxweyne ku-xigeenka ku wada hadlay haddaan haddeer loo dirin intaynu qadeynayno oo madaxweyne ku-xigeenkii meesha waa ka soo baxay ciidan degdeg la fariisin caawa waxba isbedeli kara waayo colaadaha anagu waan naqaanaa horeynu u fashilanay oo meesha yar aynu ugu fashilanay inagoo daarooda ama hartiiba ah ama Puntland baatiin in intaasoo dhaqan isu yimaadeen madax isu timaadeen in aroorti leedahay haddana waxba ka dhaco ciidan la'aan baa haddana la isugu yimi waan nasiib darro labaad bay ku noqonaysaa arrinka haddii aad xukuumadda Puntland tihiin ciidankii hore booliiska ee joogayna ciidan wax kala celin karaya ma ahayn niman wanaagsan bay ahaayeen markii arkeen laga awood batay banaanka ay soo baxay cidna waxba kuma darsan haddeerna haddaan degdeg ciidan loo fariisin oo la yiraahdo aroortii baa la geynaya dawnu garan karnaa waxa weeye arrinkaas hal la qaato oo madaxweyne degdeg haddeer saacadaha intaan casar la gaarin halka weyn ciidan adag la geeyaa oo waliba ciidan dhiiran oo awood leh oo waliba waxa weeye ku dhiiran kara ninkii soo dhaqaaqay inay madaxa ka toogtaan ayaa loo baahay haddaan taa la helin waxa weeye waxa la sheegay anigu waa markii koowaad aan imi waa markii koowaad aan nabadda ka soo qayb galay waxa la sheegay in ciidamo horena ay joogeen dhowr jeer horena waxa weeye iyagoo jooga waxa weeye dhibaato ay ka dhacday marka waxa la arrinkaana weedi ku baraarujinayaa nabadaasna waxa weeye iyo boonkana waa ilaalinaynaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin cabdiraxmaan diiriyo qoorad baa habeen dhow tiila kaftay cabdiraxmaan intii miyaan sheegaa soo gudbaa ma hadda soo qaaday waa sheegaysaa cabdiraxmaan baa wuxuu igu yiri war qoladiina jaacsi aad waa leedahay xamanaya dagaalkana waa ku jirtaan ragna waa idin kaga dhintay saan ku mid baaba hadda Hargeysa dhaawac ugu dhintay marka waxaan ku yiri dagaalka ya laba ardaayo Ciise Maxamuud iyo waxa isdhac dagaalay Xasan Uwaas waxa weeye xaqana waa laga soo gurmaday waxa weeye maxkamadda hartigu waxay Cumar Maxamuud iyo Cismaan Maxamuud ku xukuntaana lagu xukumaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.